xilli reer Quraysh ay ku mashquulsanaayeen sanamyadooda waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo aad iyo aad aatuu ah oo lagu dhadhoobnaa, wuxuuna ari u raaci jiray Uqba bin Abi Mucayd. wiilkaas magaciisu waa Cabdullaahi bin Mascuud, mana ogeyn in qadarku u keediyey sharaf taariikhduna ay xusi doonto weligeed. haddaba maalin maalimaha ka mid ah oo kuleel daran jiro, isagoo arigiisa daaqsanaya waxaa soo maray 2 nin oo haybad leh, balse haraad iyo daal badan ka muuqdo, waana rasuulkii Alle subxaanahu wa tacaala iyo saaxiibkiisii Abuubakar Sadiiq radiyallaahu canhu. waxayna weydiiyeen, wiilyow aana ma noo haysaa? jawaabta wiilku waxay ahayd mid muujinaysa macaadantiisa qaaliga ah. laakiin anigu aamin baan ahay oo ammaano ayaa la ii dhiibtay, mana idin siin karo ayuu ugu jawaabay. rasuulka sallallahu calayhi wasallam kuma xanaaqin diidmadiisa, balse wuxuu go'aansaday inuu tuso calaamad weyn, wuxuuna ka codsaday inuu lah yar oo aan weli rimin oo aana laga filanaynin gacantiisa barakaysan ayuuna mariyey candhada neefka, isagoo Alle subxaanahu wa tacaala u baryaya. isla markiiba waxaa soo hooray aano saafi ah oo xumbo leh. rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa cabay, saaxiibkiisana waa uu siiyey. candhadii neefkana sideedii ayay ku laabatay. haddaba Cabdullaahi wuxuu fahmay ninkani inuusan ahayn nin caadi ah, wuxuuna ku yidhi, rasuulkii Allow ibar hadalkan khayrka ee aad ku hadlayso. nebiga ayaa madaxa ka taabtay oo ku yidhi ereygiisii taariikhiga ahaa, adigu waxaad tahay wiil wax la baray, xikmad iyo khayr Alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey. daqiiqadaas waxay u ahayd Cabdullaahi dhalashadiisa, wuxuuna noqday qofkii 6aad ee diinta islaamka qaata xilli uusan dhulkan korkiisa muslim kale aan joogin. wixii intaasi ka dambeeyey, Cabdullaahi wuxuu noqday harka nebiga sallallahu calayhi wasallam, waa ninka qaada kabaha, adayga iyo sirtan rasuulka sallallahu calayhi wasallam. wuxuuna geli jiray xilli kasta idin la'aan, ilaa dadka qaar ay u maleeyeen inuu yahay ahlu beyt sida uu ugu dhowaa awgeed. marka maalin isagoo geed saaran si uu nebiga sallallahu calayhi wasallam ugu soo gooyo caday, ayay dabayshii qaawisay lugihiisa aadka u dhudhuubnaa. markaasay asxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku qosleen, laakiin rasuulka ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa difaacay qiimaha sahaabigan, wuxuuna ku yidhi, miyaad ku qoslaysaan lugihiisa? wallaahi iyagaa miisaanka aakhira ku culays badan buurtan Uxud ayuu ugu jawaabay. haddaba geesigan waxaa ku jiray wadna Alle subxaanahu wa tacaala mooyaane cid kale aan uga heebsan. markii asxaabtu ka gaabsadeen inay qur'aanka kor u akhriyaan, Cabdullaahi ayaa keligiisii istaagay kacbada horteeda, wuxuuna akhriyey suuraturaxmaan, arraxmaanu allama alqur'aan. reer Quraysh way garaaceen ilaa uu dhiig baxay, laakiin wuxuu uga jawaabay adkaysi, wallaahi haddaad doontaan beri ayaan ku soo celin karaa mar kale ayuu yidhi. xitaa maalintii Badar geesigan wuxuu dul istaagay Abujahal oo naflacaari ah, madaxa ayuuna ka gooyey si uu u xaqiijiyo in cizigu u sugnaaday Alle subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa. Cabdullaahi bin Mascuud keliya ma ahayn mujaahid, ee wuxuu ahaa wehelkii qur'aanka. maalin ayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, qur'aanka iyo akhri. Cabdullaahi ayaa yidhi, rasuulkii Allow, ma adigan kuu akhriya iyadoo adig lagugu soo dejiyey? nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa ugu jawaabay, waxaan jeclahay inaan dadka kale ka maqlo. Cabdullaahi wuxuu bilaabay akhrinta suuratu an-nisaa, codkiisa macaan oo qalbiyada taabanaya markii uu gaaray aayaddan, fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiidan. wuu istaagay markuu arkay indhaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ilmada ka qubanayso, isagoo ilmaynaya qaabka cajiibka ah ee wiilkan u akhrinayo hadalka Eebbe subxaanahu wa tacaala. geeridii rasuulka sallallahu calayhi wasallam kadib, Cabdullaahi wuxuu sii ahaa iftiinka cilmiga. amiirkii mu'miniinta Umar bin Khadaab ayaa u diray reer Kuufa si uu u noqdo macallin iyo wasiir, wuxuuna u qoray warqad uu ku leeyahay, wallaahi reer Kuufow, waxaan idinka doorbiday naftayda, maadaama aan idin soo diray Cabdullaahi, macnaa anigaa idinkaga baahi badnaa cilmigiisa, laakiin idinkaan idin hibeeyey. haddaba sanadkii 32 ee hijrada, nolol saahidnimo kadib, wuxuu ku dhintay magaalada barakaysan ee Madiina, waxaana lagu aasay qabuuraha Baqi. Cabdullaahi wuu tagay, laakiin wuxuu inoo reebay fariin weyn. islaamku ninka daciifka ah wuxuu ka dhigaa hogaamiye. miisaanka Alle subxaanahu wa tacaalana waa qalbiga ee ma aha muuqaalka. ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga dhigo kuwa uu jecel yahay.
ilaahay dembigeena iyo dembi waalidiinteena ha dhaafo soonkeena salaadeena sadaqadeena ilaahay subxaanahu watacaala ha naga aqbalo ilaahay muslimiintana qulubtooda ha isku xiro oo ha isku furo ilaahay dembigeena ha wada dhaafo haddii aad nagu usubtihiin idinkana soo dhowaada haddii aad hore noola joogtayna markasta qisooyinka kale aan soo gudbinana oo nala dhegaysta ma nalala socda inoo laagiray asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu